soo dhawaada barnaamijkeenna gungaar oo aan ku dul istaagi doono macallinkii dilaaga ahaa iyo shabakadiisu ay burburiyeen booliska gobolka Banaadir kuwaasoo qaarkoodna la qabtay oo ay cadaalad mareen qaarna la hayo xogtooda oo lagu raad joogo Maxamed Xaaji oo magacyadiisa afgarashada ay ka mid yihiin Daadir Xaaji Ilka Case Cadnaan Xudayfa iyo Cadaawe waxa uu ahaa howlwadeenkii ugu weynaa al-shabaab ee gobolka Banaadir waxa uu ku magacawnaa madaxa dilalka qorsheysan ee gobolka Banaadir horta asalkii Xudayfa aan ku ah group fara badan oo aan la soo shaqeeyay markii la badbadelayna magacadan aska wada group walba lagu soo bedel magac cusub waay Cadaawe la baxay Ilka Case la baxay maxamed waxa uu kaga duwan yahay dhalinyaradii hore aan ku soo qaadanay barnaamijyadeena gungaar waa macallin jaamacadeed oo haysta shahaadada heerka labaad ee jaamacadda mana ahan wiil yar oo aan wax baran oo la marin habaabiyay haddaba inta aanan u gelin sheekooyinka Maxamed Xaaji Ilka Case ee la xiriirta dhagridda bal aan marka hore eegno isagu waa kuma la fahantiisa ayaa noo sharaxaya Maxamed Xaaji heerarkiisa waxbarasho sidii kala dugsigii hore markaas aan ka soo baxay markaas oo idin kaga sheegaysan markaas oo culumta diinta aan ku soo baxay oo itixaadka ay lahaayeen xag diin ahaan markii la kutubada soo akhristay oo dhowr ay u badan yihiin saalixiinka iyo bilowul maraamka iyo tajriis waxaan kutubada tajwiidka iyo kutubada kala jihaadiga wax badan ka soo akhriyay سواء مش اللي يقدر تروح حافظ عوالم لك مريض من حافظ القرآن حق دين تسوى مركب ديك سوا صدق حاسود مي سنة كذاكم يسديد السوق صديق بس لا أكيد بكيك وحاسود بدي بقعد مركب قبل أو ديك سوا سرع حاول مي 11 2011 كذاكم يسديد يو كوي تبانك إلى إلا بتوقع حيسا أنا أخوتي الجامعة سو قالي لو طبعا كي لا يلحي طبعا كان دقينا شهادة بي إذا خاطئ كدي بوحان قالي معت إنجليش كلو برتو مقال كعزبة فرونتير لها مش حان كخاطئ شهادة دبلوم إنجليش أسستنت أنا إيه خاطئ مركي عن كسر أسستنت أنا إسلاقي حان عشان نخلو مع معنى إنجليش أكاديميك إنجليش عندي مركا دولة كلا هذا جامعة مقدسة بلاوي ماستر environmental study halkan waa maxadka Frontier oo lagu barto luqadda Ingiriiska waxaana uu ka ahaa macallin Ingiriis Maxamed Xaaji Ilka Case isagoo fasalkan ardayda kula wadaagi jiray duruus of preparation one of the international exams of the world. It's a center which provides and prepares IELTS preparation. I think in general East Africa we have only few countries that operates and prepares the IELTS and the TOEFL. Frontier became the very first college started preparing the method of macallinka dilaaga noqday Maxamed Xaaji waxa uu horjoogo ahaa shabakadii ugu halisaneyd al-shabaab ee Muqdisho ka geysata falal argagixisanimo waxaana sida ku xashaxda booliska gobolka Banaadir madax u ahaa qaybta dilalka qorsheysan ee shabakadan Maxamed Xaaji iyadoo uu ku xigeen u ahaa Sharmaaka Cumar Axmed oo loo yaqaan ugaaska ama ganay kaasoo ay hayeen xogtiisa iyo sawiradiisa booliska gobolka Banaadir ayna ku raad joogaan Axmed Faarax Iile oo magacyadiisa afgarashada ay yihiin Shuuriye Madoobe Nuunow iyo Ramadaan Cabdiraxiin Mursal oo la baxay Saalax waxay ka tirsan yihiin shabakadan dilalka qorsheysan qaybta istikhbaaraadka ama sahanka waxay ahayd shabakad kale oo ka tirsan kooxda Ilka Case waxaana ku xigeen u ahaa dhinacaasi Saalim Saciid oo ay gacanyareyaal u ahaayeen Haashin Carab Faadimo Corneylo Maryan oo ah xaaska Saalim Cabdiraxmaan Sheeba iyo Cabdinaasir Axmed oo maqanayaal ay boolisku ku raad joogaan Maxamed Xaaji Ilka Case waxa uu ka mid yahay dhalinyaro dhowr ah oo al-shabaab ah oo aan horay u soo waraysay kuwaas oo fikirka takfiirinta iyo xagjirka lagu soo baray dugsigiisa Quraanka taasoo ah halka uu kala jaan qaaday al-shabaab horta fikirkan wuxuu ugu dhashay fikir oo anigoo weyn ah
waa ka yaraa macna marka gaar ahaan tusaale ahaan dugsiga hoose dhexe markaan dhiganahay dugsiga quraanka dhexe dugsiga quraanka aan dhiganahay wuxuu ahaa dugsi itixaad ay leeyihiin xiligaas dugsiga aqwaanka hal jir gobolka oo dhan waa looga imaan jiray marka la markaas ahaan xiligaas suufiya ku badneed magaalka iyo gobolka laakiin magaaladaas waxa loo imaan jiray dugsiga la aqwaanka oo caan waa dadka bol mar dugsiga aqwaanka dadaaday ameel aan hada ugu sheegi karo marka dugsiga waxa macallimiin oo ahaa banaman oo xiligaas oo atxad ka dagaalam jiray oo la dhaho macallin Suleymaan nin la dhigi jiray oo howlgaladii calal ka dhici jiray Itoobiya ku baxay maxamed xaaji ilka xasan waxa uu shaqadiisii ugu horeysay al-shabaabnimo ka soo bilaabay magaalo xeebeedka marka oo halkii uu ku soo dhigtay dugsigiisa sare waxaana uu ku doodayaa in dugsiga sare uu soo dhigan jiray ay saamayn ku lahayd kooxda al-shabaab kuna soo booqan jireen horjoogayaal ka tirsan kooxda xiligaas dugsiga waxaa noogu imaan jiray waa xili hore sheekh Fuad waa nin iska yaraa xiligaas xoogaa da'ahana nin weyn u ogyahay iyo aadan xaashi iyo nin la dhaho maxaa la jiray Cabdullaahi Salaad iyo Abu Zubair meesha ugu waajir kale ma ka jirin xiligaas laakiin ilka xasan waxa uu marka uga shaqayn jiray habjaajuusnimo oo isaga koox kale ay ka dhex shaqayn jireen inay macluumaad ka ururiyaan dadka kooxda ka tirsan iyo dadka ku dhex nool deegaanada ay ka taliyaan waxayna ka warbixin jireen wax kasta oo kooxda dhexdeeda khatar ku ah balse markii ay dawladdu la wareegtay magaalada Marko waxay isla iyagii laga dhigay koox qaabilsan qalqalgelinta amniga magaalada Marko dawladdu marka meesha oo soo tashatay markii isoo galeen oo markii kor laga soo wareegtay calash ilaa iyo markii magaalada marka la qabsadayna ragii daaqiliga ahaa ayaa waxa la yiri qaarijiga isku bedelay dawladda imaaday daaqil oo ku soo baxay ninka qaarijiga ana taasoo qaarij ayaga howlgala ilaa dadka ayaa yaqaano intaan ku soo koray mugta ki isbedelaayo ki jaasus ah askarti dad cusub hadii keeno yaani dib way naqeen in loo tilmaamo laakiin anaga wada naqaana ma laga shakisan hadana sidii waxa la jiray aan ku bilaabay hawshii ugu horeysay kooxdan wiilka xasan ka mid ahaa ay Marko ka qabtaan waxa ka mid ahayd dilkii wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Asad Xaajow kaasoo ka shaqeynaya Xaajow Bookshop oo ay qoyskoodu lahaayeen wuxuuna sheegay maxamed ilka xasan in dilkaasi uu geysay nin saaxiibkiisa isna uu ka fogaaday in la aqoonsado maadaama ay Asad saaxiib ahaayeen Asad aan shakhsiyan aqaanu ahaa yani من في عنوها دولة المشركين وحبهم وسنهن إيش ستيشن روك جوجي فوتوضاس وسك جوجي فمن هنا يعني وادت أطلعوا يقانا فوتوض يسوي لك كاس حلقة قبل كنا بولا يقانا سوير كدوسي صار شهادة حتى يسوي يقانا بنا كان جوجي أو ماشي ستيشن روك تيسا منشيبي من الله كتر صارت دائرات أو محاضرين كحلو قبل جري أنا حاجة تاجن أو حركة أنا أو مركز دمن دونه أو بود الله ده دونه أمش تاجنا أسد تلفون توقفت وحده ورانا ما كان وضع عرّن قبل وده والله فلي واي شهابتي وحي إيه كم بود الله حموس ونبسن إنك أقبلها عبار مركب عبار إذا أنا صوت أرد مش وكان إيماني نكيو جيفا رجنا هنا كان بس كل حريصنا بس نكيو صوتني حد عسان وده هاي إنك وده تلفون أسوق هذا التلفون كسوة كذا أنا مش تاجن وده هاي إنك أسوق قلنا وحو قد بناي أسد مركز هو نولا أنا وأركب أنا بارالايس هو نولا يعني ميد هان وصوت جينا كلا كم كسر نولا أسد مركز دت كم سكان يقانا قاركوت سكر صاحبه ونا فوتد يوحي مركز ما بقدر سمن بعنا هذا وسيسن فرق يسوقين بنا كان كيس تاجي maxamed xaajiilka xasan waxa ka mid ah waxyaabaha xajiibka leh ee uu sheegay in markii magaalada Marko ay dawladdu la wareegtay uu la noolaa Jeneraal Ismaaciil oo xaruurtiisa uu saaxiib la ahaa iskuulkana wada dhiganayeen wuxuuna barnaamijka gungaar u sheegay in maalinkiina uu gabaad u ahaa guriga jananka habeenkiina uu isla guriga bambooyin ku tuuri jiray si uu u dilo jananka uu gurigiisa ku noolaa ee uu la tacaamulayay sida xaruurtiisa oo kale آخركينا وحاو مركي ومركا كدلي واهي وجنرال إسماعيل أحمد عثمان مكيالي كدلي سيديدي اللباتنكي بشي تمنا سندكي لبدي كوني اللحي تمنكا دقمدا وابريا مقالة مقدشو نينو حال جري إسماعيل جاشان اللحي أها وعن وايس شنامنا عن كامركا كتار شيخ إسماعيل مركيالو دمغش نينك اللهوا جنون لكن سياد بروها markii dawladda ay dadkii xagga markii shabaabka ay qabsadeen asal
oo shaleemada laga burburiyo laga bursado ahaa meesha intuu imaaday dawladda uu soo hubeeyay dib loo sii janay waxa la jiray darajadiisa markuu soo weeraray si kala daan u dhigay marka aniga iyo wiilashiisa saaxiib waa ahayn shaleemada Ismaaciil guriga ku dhiganaa buu deganaa baan weligii magaalada markuu soo galay gurigiina waa deganaa ninkaana janan waay adeeraas ka dhaha marka mugti ilmiisna saaxiibana ninkii aameesh dadka qabtay uu kumid ah marka Abdulqaadir Siidi isagii gurigaas qabtay ninkaasna waxa waaye dadka isaga iyo ciidanka iyo dadka si gaar ah u beegsan kamid ah isaga dhowr mar oo aan shakhsiyadii iga badbaaday oo aan gurigiis bam ku tuuray ciyaalkiisa saaxiib waa ahayn hadda marka dambe intaan ku helay ninkii waxaasna way soo dhamaadeen waa la soo weynaaday jaamacada la dhameeyay darado Muqdisho kan 2 sano ka hor iyo hal sano ka hor inay tahay jecel Liberian ku helay Ismaaciil asoo Interpol shaqeynaa booliska mud 5 sano 6 sano ka soo wareegtay ninkii dadkii meesha waxa soo baaba inta la isleeyahay mugti ninkii intuu imaaday isagoo sarkaal la sii dalacsiyay oo yani Interpol u shaqeeyay wiilashiisa saaxiib waa ahayn anaga marka si hadii loo dhaho xoogaa waxaan ugu jiro adeernimo iyo wixii qaraabo maniin laakiin adeer iska dheena laakiin haddana hooshii ana baris adeer iyo waxa inaan ana ugu dambeyn hada ninkii saaxiibkayga Hashimi afar sameeynankii iyo ani shuri dilka Generaal Ismaaciil kuma uusan ahayn Maxamed Xaaji kaligiis waxa ka qayb galay Haashim oo kamid ahaa shabakada Ilka Case waa kan Haashim oo isagana ka sheekeynaya qaybtii uu ku lahaa dilkaasi wuxuu fadhiyay maqaayad ku taalo isgooska waa beri isgooska shaqaalaha uu fadhiyay meesha laga soo dhowrahay haddan ciidana markaasna oo seminaarka maadal sheegay Talyaani ma sarkaal waxa marka xaafadu soo galay xaafadiyaan kala soo dawgalnay markay taasan sidoo kale Maxamed waxa uu sheegtay inuu gacantiisa ku dilay Xaaji Baano oo kamid ah waxgaradka magaalada Marko xilli uu masjid ka soo baxayay waxaana isaga dhagar qabayaasha la socday banayseen dilka qof muumin ah oo ka soo baxay masjidka Eebe يعني ninkan isaga ah oo Baano Xaaji Baano waa nin orto dhowida dhan lagu yaqaan markii isaga laga soo laabtay dabadoonnimadiisa iyo durqnimadiisa aad ka aha de markuu masaajidka uu soo baxay masaajid yar Ar-Rahma Allah oo ku dhaxyaaris Ar-Rahmadan weyn ma aha oo wajar ku dhaxyar koo kale waxa jir durqbada ku dhaxyalo sharafada yar oo durqbada ay ku tugtaan kii uu soo baxay banaankan ku helna marka laakiin waa la soo confirm gareeyay ninkaas ala cunaalay markii dambe waxay kooxda Al-Shabaab u soo bedeleen Maxamed Xaaji inuu ka shaqeeyo magaalada Muqdisho oo uu sheegay in waqtigaasi uu haysan jiray kooxda waxdishan inuu magaciisa ku sheegay Cabdiraxmaan oo ay ku xigeenno ahaayeen Cabdi Majiid iyo Cabdi Muuse kuwaasoo midna la qabtay midna la dilay sanadkii 2012 Maxamed Xaaji markii ugu horeysay uu shaqo bilaabay waxay isku koox noqdeen Galadila iyo Mooryaanka oo labadaba loogu soo xulay inay Muqdisho kala yaqaanaan waxaana hubhayso u ahayd Felis Macow oo ah xukunsana ku jirta xabsiga dhexe ee Muqdisho ana shakhsiyadan galad ninkan aan ku soo gaaray wax yar ana ku soo gaaray khilaafkii jugti wixii dhacday waa leeyahay kii kadib wixii dhan waa la bedelay lahay galad aan loo keenay oo Galadilay galada waxaan lahay ila shaqeysta eragin hadda asaasta magaalada waa ka saayay wax ka qabta sida dadka loo asaasay oo wuxuu dhahay garad niman jabhada oo isku jirteen xilliga laakiin aad ku yaqaan aad aqoonina jiro oo guur hadda hoostagaan waa laba nin oo active ah ku keenay yiri isla shaqeysta saddexdiin labadii qof ee waqtigaasi la shaqeynayay Maxamed Xaaji hadda galad waxa uu ka baxay Al-Shabaab halka Mooryaankana la baadigoobayo ay sheegeen booliska gobolka Banaadir inay hayaan macluumaad ku filan in la soo qabto oo ay ka mid tahay sawirkiisa Maxamed Xaaji waxa uu ka bilaabay Muqdisho hawlihiisii dilalka dhagarta waxa uuna Muqdisho ku dilay dad badan oo haldoor u ahaa bulshadan kuwaasoo isugu jiray saraakiil shaqaale dawladeed iyo dad kale oo bulshada waxgal u ahaa dadka haldoorka uu ku dilay Muqdisho waxa ka mid ahaa Generaal Cabdullaahi Maxamed Sheekh Xasan Quruurux oo ahaa sargaal ciidan oo waxtar u lahaa dalkan waxa uuna jananka ku dilay masjid ku yaala Waabari isagoo ka soo baxay salaadii cishaa maadaama uu sheegay in maqribkii uu ku adkaaday dilku sabab la xiriira ciidamada ammaanka oo ka dhawaa aaga
جنرال كان ماشي سوف فديسنا مقرب كعشاء وحو كتكنا marka maqribka ma la dili karo oo degmadu u dhow yahay degmadana ciyaalkan racad ka joogo agaas isha madow waata marka waa isho marka niyo dhowr mar isku daynay waxa la isku heshiiyay hadii ninka bubuk la maqlo degmadu u dhowdahay isgoosada day xiraan inta laga baxa ragina ila lugayaan hal luuq waxa jir marka mar walba luuqa xeelada la lahaado oo lagu baxsada jiro oo la calada wadooyinka la xiro oo bajaajta la barbaaray dhalinyarada iyaga waxooda wataanay meesha soo maray dilka jenaraal quruurux waxa uu ka mid ahaa dhagarii ugu xuslaa uu sameeyey maxamed xaaji ilka case waxa uuna ka hor dilkaasi diyaarsaday 2 koox oo bamgacmeedyo ku kala tuura xarunta degmada Waabari iyo bar ciidan oo ka dhaweyd meesha si uusan gurmad ugu imaan inta dhagarta dilka ay socoto kuwaas oo markii uu isagu taleefanada ka baaqay tuuray bamgacmeedyada kadibna uu isagu fushaday hawshii u socday oo ahayd dilka jananka masaajidka cisho ku tugtaa marka qorshaha waxa la keenay waa la fariistay shiraac anaga waxaan dhahay shiraac hoosh adeegan ay taala soo qabsan laadeen ay taala mar muqdisho idinka dhex joogay waxaan wixii khub iyo fan loo baahday diyaar waa laakiin hoosh adeegan wada جنرالك مركا هوش أنا وصل شوتين يوادا مقدس أو كلي خان بدبد أنا سلمان وصل شوتين سلمان ترى هو يرنيه جنرال كرتا حل ملوج هذا كر لو الملوج هذا كر صدق الملوج هذا إلى لبوا وطا مركا ستافكا لبوا واي حل نسقوه نقول بشغلي سقف صدا نقول بهلوك هذا مركا أنا حكون فكري دقمة أودو waxaan nahay markan iyo macquul ma degmada hal dhagax lagu qabto oo mashquulin ah hatta albaabka isaga dhufta say barto intay difaac ku galan xabaday oo tooraan isku qasanto ugaaska wuxuu soo jeediyay degmada hadii lagu dhufanayo kuwa kale oo bundadana gaaraya meesha u yaalo jukka dhacay soo dhaqaajinayaan ayagana aan ku dhufana markuu warkii la isku raacay talada raafiyay dhagaxyadii la keenay oo la soo diyaar garoobay saddex markii lagu soo diyaar garoobay ugaaska caawab hal loo keensaday hal qof loo keensaday maxalli jiray jananka hal staff wata bas sayidka isku tugtay markii cishaha oo laga bixi rabo waa u baaqina dhalinyarada markaan u baaqno baaq aan ku dhufan labada dhalinyaro in jugta ay dhacdo kadibna xabada lagu xijiyo saas ay ahayd si xabada dhan ay u dhumaanba ila jug markii xabada la wada yeerna waqti ciidanka tuuray meeshina ku dhex qarsantaa la rabay kadib sidii jugtii dhacday oo ku qaban ugaaska iskooldan soo siiyay الله naxariistay jenaraal maxamuud xaaji cali oo kamid ahaa saraakiisha ciidamada ayaa kamid ahaa dadkii uu dilay maxamed xaaji waxaana uu ku dilay degmada Boondheere xilli uu jananku hor fadhiyay gurigiisa waxa soo gudbiyay wiil mootola soo gudbiyay oo dhahay nin janana meeshan joogo markaan tagay oo aan shaqada soo fiirsanay dhahayniyo soo fiir dhalinyarada xagga gudeen Boondheere meesha ugu xarunta badan waa dawladda maxaa la jiray soo fiiri shaqada markaan tagay oo maxay toole aan soo fiiriyay meesha way adag tahay aad iyo adkaatay waxaanay ninkan general ma okay maxaa aniga banaag iska fadhiy horkan general ma aan dhahnay oo ku qaldamaysid hore ma ogide magaciisa sheegayna xataa shaqaas qaado hornaka janam ma aniga sarkaal waa dhici karto ninkan jan wala ku soo fadhiisanay hal wiil la fadhiisana ma jiraan meesha wax ma baro cunin buuligeeda taasoo kalsoonidaas isku qabaa bas okay waay marka galab aan rabnay galab oo soo galways subax guriga loo dhisaya subax ani iyo shoori iyo waxa imaanay iyo ugaas shaqada ilaan shaqa janna mug ilmo yareer ma kaysan kartid waa kaaga dhaawacmi karaan ka dhiman karaan ragii waa weynaad in xaniyooda fuulaha markan meesha imaanay janankii isaga ah jananka waa fadhiya subax waa haddii ani iyo ugaasan xiranay shooriina waa u xiran tahay shoori nooha xag u taalo noohadan ka qaadan aan ku yiri ma nooha ma la bixi karo siinaadee naga xirtaan isgooska baxbada dhacamay waa la bixi karaan ku yiri waa jafeena dina la dhaafan oo tuurinaan bas go'aan ku qaadanay noohadan qaadanay haddaan aadnaba waxa arkoyaa guduhu galay dhagaxad xagga ag marnay guruhu galay ninka shooriga kor naga daawana waxa dhahay ninka guriga waa u gashan guriga wax ku jirma dhaqan oo kaadaan waxa soo baxay janankii oo janankiisa wata oo dharkii militariga wata ima aqaaniye waxa digaha ugu toban iskoolo biljam fiican wata imid kale staff
وطا يعني غير وطا هاك وطا أصل صباح وراني ما كنت صباح إننا نصعد نك وين كسكيل علي بس كانوا وطا بس إنه هذا الجلان أنا أقول أنفلين فقد أنا وصار بهم متهاوني بمركانك وأسفيرين وأصلافنا يعني هوش السلام كصوب بعد سيك دوني نوع نقد من كان ماشي نوفدين عادي اسكا هذا بس كله سو قاتي اسغا خلصت هذه لا دارك ودي ما ودغنا مالين كلابات مالين كلابات اصلا سيدي سو بلانك فديه بوك ان سيني ما هذا لابتوب صار اللابتوب كان سو دفاي سو عررني كوفي ان كول غلا مربنا waa la yaqaanay كوفي ان كول غلا سو عررني xeer ilaaliye xigeenka qaranka maxamed cabdiraxmaan oo gurigiisa ka baxay una socday hawshiisa u khidmaynta shacabka ayay ku dileen waddo ka soo baxda gurigiisa iyagoo kadibna ku baxsaday gaarigiisa balse iska dhigay gaarigaasi markii jidadka oo dhan laga xiray wuxuuna sheegay in xeer ilaaliyaha ay ogaadeen xilkiisa markii ay dileen kadib isaga ayaana gacantiisa ku dilay maxamed xaaji xeer ilaaliyaha bajaajka aan ka soo deganay gaariga ka wastaanay كان واسونا كلا بيكسارين إنك كلا إلى أنا بجناي إنك ما هذا قل ما صار بس هذا قل إنك كلا إلى الله أنا فرنا صاحبه ومشغول أنا إنك عدو وطابط ومشغول زي مكتب بس كعيس ما عايز هذا ولا قاعد كرر كذا إنك كلا إنه مركب إنك إلى عليه واحد دلائي إنه إلى عليه أصلا كرر سوى كان بد كان هي حاجة قل أنا قل أنا قاعد أنا قل هي إنك قاعد دمر مش صاد حقله أبنو هكذا بقى استاجيب سمياب دش هذا عي كان كلا تقول هاي بقى قبتي صدق أنا قارك صدق صدق أنت صدقتي ومنطقي وفريستك عيو اسكت درس من سوى عبين مركب وقاعد عقد لك جد ولا مرة مكت تين الضوء على أسكار الله عنك وإحنا ملوهين عن ملاء قوسين كدب وحمق لنا gadaana kama qaddoona ninka oo dhahay war hebela nina telefoonkood la dhageysaday anaga meesha iska marin dabki war ninkii isaga ahaa ninka kale waa la saarnaaye see loo dhaafo marka ninka kale war ninka kale lama aqoonsan alla diban ka fahmi doona ninka taa inuu wax ahaa falowla aan ogaanin waa dhigay naftirkiisa isaga diban ka ogaan doona ninka gaari la saarnaa inuu shaqada wax kala ahaa yani xeerlaali maxkamad uu naftir ku shaqeynaya ogaani factor laakiin lama hubin sidoo kale dilka taliyay saldhigga Wardhiigle ayuu wax ku ogaa in kastoo uusan isagu ka mid ahayn kooxda wax dishay wuxuuse ku doodayaa in kooxda wax dishay u dejiyeen xeelad ay ku qiyaameeyaan taliyaha kuna dilaan in ragga meesha uu ninkan ugaas yar kale saalax uu meesha mooto ku barbaray mooto barbarad laga dhigay dabada taloomara hubkii uu soo dahay dib u imaan ay qaateen furtay موتا أوس مش حكوا بربرة صالح وحكوا لي عن الموت مش حكوا بربرة عباري مش جوجا رجعت ما تكوت ولا معك سانسي عمران تلي مش يكون دوالي إيش سان كسوهن ليه sometimes نحن أركيس خوفك أنا عنا حتى ما نقان maxamed xaaji waxa uu sidoo kale sheegtay inuu wax ka ogaa dilkii aamina oo ahayd baare ka tirsanayd nisa waxayna ahayd qofkii gacanta ku hayay kiiskiisa markan ka horeysay la soo xiray maxamed xaaji aamina meel aan ku arki lahaa ana ma dhaafeen dadka qowl number 1 ka ah xataa ana ogta taasoo fahma aamina rag fara badan horta xaniya qabato oo markii meesha joogtay wax badan ay haleysay waxa kamid ah yar la xukumay oo la dhahay maxamed mare تقال محمد marka milyan qof baar oo soo noqoto in hal uu fiirinayo aamina waxay u tin ku ahayd al-shabaab waxayna dhamaantood u arkayeen qof khatar ku ah maleeshiyaadkooda la xiro isla markaana aan marna gorgortan ka galin shaqada ay qaranka u haysay waxayna sidoo kale caqabad u arkayeen inay aamina waqti dheer joogto baarista iyagoo arkayeen qof marka la soo xiro ay haddana sanad kadib markii la soo xiro isla iyadii joogto ay aqoonsan karto qofkaasi maxamed xaaji ilkaxase waxa uu sheegay in kooxda aamina dishay oo isagu geeyay goobta ayna hagaysay qof dumar oo is yaqaaneen mid ka mid ah dilayaasha waxaana dilkaasi fuliyay sida uu sheegay ugaaska oo ah qofka sawirkiisa aragtaan oo la baadi goobayo iyo cabdullaahi kuusane oo isagana sawirkiisa aad aragtaan oo la baadi goobayo iyadoo hubka wax lagu dilayna ay watay maryan oo ahaa cabdullaahi kuusane hooyadiis isla markaana xaaska uu qaba salmaan oo kamid ah shabakadan la hayo kiiska aamina wuxuu u dhacay san u sheegay hal shay baan ku diray
وحقيق إن اللي صوحي أو لا عيالك ود جيمش مالين عبد الله مكوني كري أنت إن أنا وياس يجروب كيسة عن وضعي أو عن جيمش عن بنانك كيسة داوش سوقتها وجودها إنه كجري كوسنة أو كوسنة مركزنا وتويدي سوعي نايا أول شيء سارنت وحنا شكي يجرن آمن قفك كلاس كله فدي إنه قد بهذا كان حتى بنانك وجوهم كده هنا أركض بركة كاش فصل كلا لفدينا كده فهمتي وحنا سي قياس هيا قفك فصل كلا فدي إنه صاق عيسو استاجي وبنانك هو صابعي وكوسنا لحد لكن دبنا كلابتي يعني لما أنتوا بحنا كدبنا وش صار ولا حد دمر وها كوسنا على صح هذا شيء كدبنا صلاة كدبنا كويس صدق هذا المرة السوق له كوسنا وحوك استاجب الباب لبضان هو شيء قشي يعني لبض وقشة ولي صدق يكون سعيد كاس يمكن أفهم مع تاني كلام تاعنا هتفر في أردن سمي أردن كوسنا وفي سنة halkan waa jaamacadda Soomaaliya kanina waa fasalkii ay dhiganaysay Aamina lagu dhex dilay waxayna maamulka jaamacadda ii sheegeen in fasalkaasi wax lagu barto ay ugu dambeysay maalinkii lagu dhex dilay Aamino kadib markii ay diideen ardaydii kale ee jaamacadda inay wax ku dhigtaan fasal lagu dhex dilay mid ka mid ah ardaydooda ardayad Aamina waxay ahayd qof ku firfircoon waxbarashada leena hami fog waxayna dhiganaysay kulliyadda shareecada iyadoona jaamacadda Soomaaliya ay ila wadaageen natiijooyinka imtixaanaadkii ay gashay ka hor intii aan la dilin Maxamed Xaaji Ilka Xase waxa uu aaminsan yahay in dadaalada ciidamada ammaanka iyo baraha koontarool ee la badiyay ay dhabarjab ku noqdeen kooxda waxayna taasi meesha ka saartay kooxdii wadan jirtay gaadiidka lagu horjaro gaadiidka kale ee kadibna saas lagu dilo qofka gaariga wata isagoo sheegay in hawlgallada noocaasa ay gabi ahaanba kooxdu joojisay sariirka waa balaarta sariirka yani waa baabay hada dheh fashilkii suceebiyka iyo waxa ku dhacay fashil fara badan kadib iyo goobaha oo ciidanka jaakabantiyada la badiyay inuu waxay jirto mar badi ex control aan gaarin xaniyaan lahayn waqti hadda ex control dhaafsatay xataa galmudugna kan wuxuu ku sameeyo masahlan hada مثلا استراتيجية أمنية ay dejiyeen saraakiisha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxay ku qasabtay al-shabaab inay yaraadaan falalkooda argagixiso waxaana meel kasta la dhigay dhalinyaro boolis ah u heegana ilaalinta amniga shacabka kuwaasoo ku qasbay maleeshiyada al-shabaab inay isaga firxadaan magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya waxay samaysay wax kastoo ay ku xaqiijinaysaa ammaanka muwaadiniinta waxayna meesha ka saartay falalkii argagixisanimo ee gaadiidka lagu horjeeray gaadiidka sida al-shabaab laftigooda qirayaan waxayna ka dalbanayaan shacabka inay ka gacan siiyaan ammaanka wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa sharaxaya guulaha arrimahaas ay ka gaareen ciidamada dawladda Soomaaliya sida aad ogtahay waxa ay sameyn jireen waayadii hore markii ay ficil xun inay geystaan ay ka cararaan laakiin waayadan dambe laamaha ammaanka waxa ay la soo baxeen la falgalkii ugu adkaa cid allaale cidii wax geysatana gacanta lagu qabtaa cid allaale cidii wax isku dayi doontana waxaan u sheegayaa inaysan ka badbaadeynin laamaha ammaanka haddii ay falka ay geystaanna aysan ka baxsan doonin Maxamed Xaaji Ilka Xase isagoo macallin jaamacadeeda ayuu ku dhiiraday inuu magaalada wax ku dhex dilo wuxuuna ku doodayaa inayba dadka dhan maqan yihiin oo aysan aqoonsan marka uu wax dilayo waa iska jirtaa mucjiso aan saxood marka wax dilis dadka ku arkayaan meesha wax ku dishay maalin kala daymaad caadi qalbiga wax markana waa la kala yaacay ma aqaanani isla maalinkii barnaamijka meesha imaan shaaq cabeen dadka ka sheekeena mar dilka dadka kaliya kuma ekayn Maxamed waxa uu sii dheeraa inuu ahaa tababare ku xarbiya dhalinyarada falalka argagixisanimo ee dilalka shacabka ay ka mid yihiin wuxuuna ka dhigtay wax ciyaar ah inuu dadka dilo isagoo soo kaxayn jiray dhalinyaro uu ku biiriyo al-shabaab kadibna si toos ah u tusi jiray isagoo wax dilaya si ay ugu daydaan isagoona ku oran jiray waan idin dhigayaa ee dhammaystira taasoo uu la jeedo inuu qofka u dhaawacayo iyaguna dhammaystirayaan marka dhaanayaan wadan iyo inoo laba wiil cusub la soo wadaa aad u fiican oo ladan ka soo jakimay bal shaqo ma bari kartaan wadaas wiil hada qof darwala oo sameeyo shaqo ma bari kartaan ha waan loo keenaa marka dadka marka dad
tabar ahaan dhameystiran laakiin practical ma leh theory ahaan way dhameystiran waa la baraa marka shaqada kama keysana mas'uuliyadan keena anaga wadan shaqada haye waladan baraa okay ana galaada iyo wixii oo ku dhigan in ku dhameystiran meesha ka dhaha furo control ku xal xagga istaagaysa aad waa kaas ugu haye bash wala bilaabay ninka maalinka labaad qof kala keena maalinka saddexaad marka active in qam isku filanti marka la markii loo wadaatan marka magacaan kula shaqeynaa ragaas anad Cabdullah man kula shaqeynaa mii yaqaan laakiin dadka uu tababarka noocaasa siiyey waxaa ka mid ah wiilkan oo lagu magacaabo Shucayb kaasoo hortiisa dilal ku sameeyay marka waxaa imaadinay how in la baxaa la rabaa oo maxaa la dhihi jiray dooro la aado waxaan dhahay ana markii ilaa hadda ana inta lambar leen kala marayna koodhe waxaan dhahay lambar iyo macluumaadaan kala marayna ana ziyaado kale ay soo gelinayaan xamar hadaan ka baxo inoo dadka ayagu macnaha horta waxay ku leeyihiin meeshaas aad dheh tahriiba aad dheh inta ka baxaa dheh wax saas camal sheeg laakiin anna waan dareensanahay adina waxaan isleeyahay maxaa la jirinay qof waa warkaaga waa la fahmi doonaa mise system waa ka qaldami doonaa waalid xaqiisa ahaato mise si kala han noqoto waxaa la ilaa inaan soo baxdo maxaa la jiray meeshaas imaadada oo aad ashar qaadid muhiim ah waxaan dhahnay aan xamarka ma bixi karo haweenka ma bixi karo maalinka ma bixi karo xamar dhaxdiisa waxaan dhahay meeshaas dadka maxaa isku sheegaa wadnaan lahayn meesha kama soo qaaday wax kale oo meesha dhammaan ziyaadeen shaqada qabashadeeda leemahano qabashadeeda marka waxaa marka isku fahanay tababar iyo waxaas iyo in wax lagu soo fahansiyo 10 oo wax fahansiin wax kale uma baahnaan ahaniyo ma fahantay ani waa inaan hadda maanta 10 ay akhrisida wax iga dhaadhicisay ani hadda uma baahnaan marka hadii ay si kale ay jirto ana safar ma soo aadi karo xumaana aysan naga noqonayna mis wuxuu dhahay marka kulay waa isku noqdeen kulay ragaas waxa waa rag imtixaan waa isku laabteen marka waxa la horta ninka waa laga wareersanaa barnaamijyada ayaga isla wada hadlayaan saan jeclahay anana aan ogeyn laakiin se ugu dambeyn markay soo wada fahmeen waxay soo go'aansadeen waxaan dhihi jiray in ay shay noqoto gartaas ay macnaha macquul ay noqoto uu soo celiyay wuxuu dhahay maxaa la dhihi jiray inay shaqada iyo qaabkeeda iyo nooc loo qabanayo iyo wax dhan waa lagu fahansiiyaa سيل إيفانسينا نكا سامعنا محل ليجري صاحبك راعيسا سو مراتك أهانة تفهمي عربية كوح la socoto oo hogaaminaya Maxamed Xaajiil Kaxase waxay isku dayeen inay dilaan hooyo ilmo ku korsanaysay ka ganacsiga jaadka agaarka siliga Ameerikaanka halkaas oo ay markii ay kor tageen hooyadaasi ay dhamaantood u dhixi waayeen basooladii ay wateen waa kuwan kooxdii basooladu u dhixi waayeen oo mid noogu sharaxaya wixii maalinkaas ku dhacay horta intaan aqaano horta waxayna hayeen ilkaas Arab Ahmed iyo aniga Yaxya oo laakiin way Ismaaciil saxda markii oo islaantan inta la aadan ka hor Ahmed ayaan isku xiray ilkaas wuxuu dhahay waxa la shaqeynaysaa ninkan kula shaqeynayo wuxuu dhahay meeshaas naagtaas oo irgada wax soo doorato iyo waa liisha nolosha raaxay irgada soo dooratay islaantaas ayaan ina adinarna waayahay ayaa dhahay Ahmed ayaa kula jiro dhahay Ahmed iyo aniga waa soo aadni marka hore ilkaas ayaa ibar islaanta jaada yagada irgada soo doorato ii sheeg Ahmed isna wuu bar laakiin aniga markii dib Ahmed ayaa israacin waa soo waaneenay waa iimaaneen marna way maqnid ida maqnid oo la way baaqati marna marka aadna oo ida inta markii la helo kadib waa la waanay maalinka dib ugu dambeysay waa la helay habeenay ahayd maqrab markii la soo dugtay kadib meeshii marka tagnay oo irtijaadki kadibna meeshii ayaan howlgalkii in la furiyo rabi howlgalkii istildooyinkii iyo wixii ka tibeen kadib anaga waa ka soo tagnay waa ka soo cararnay meeshii xoogaa yar buuq yar ka meeshii waa ka soo kala cararnay kadibna anagoo cararayna ayaa ciidamada dawladda dhexda u galnay horta muddo waan ka soo qaaday waxaan keenay cabirka siliga tala gaarin bacaad ahayd meesha ku tiji iga digeen adiga 10 daqiiqo ma soo wareegan asoo qaylahay soo baxay ilkaasa niyo waa baasha ka halawday inuu ka gaaro meesha ka tageen dad ha qaadan koorsa daasho shaqo qaadan haybayaan ay mana diidi kartid waa soo qaaday asoo kontaroolkan ku soo dhacay marka kontaroolka waa askarta istaaxo ku soo dhacay niyo
أنا هرت سيستم كقبش أهان مركا أقول شيء oo haddii meel kasta la isla aado mise meel kasta la soo maro horta wax aan karsamaynin waxay ahayd anagoo shaqadaas naga soo baaqatay kidibkaas u imaaday ay tahay meeshan cakaara taqaane ay tahay ya meeshan lagu qaban doonana in kullee ay tahay madiina salkeeda ay tahay oo san wixii oo qabashadeena iyo intaasna aysan u dhaxaynin wax aan 10 daqiiqo dhameen hataa haddii aan fiirino 3 daqiiqo camal ah soo cararayna oo orod fiican ah marka meesha imaan bajaajka 7 daqiiqana ma aanan saarnayn si aan hadda aan qiyaasay markii been banaanka laga tago ujeedaa marka umuum isku dar intaas ay baash hooyada ay rabeen inay dilaan kooxdan oo lagu magacaabo Baarliin ayaa isaga xarartay dalka iyadoo ka tagtay carruurtii ay u xamaalanaysay kadib markii ay u baqday nafteeda waxayna iyadoo joogto Turkiga la wadaagtay barnaamijka Gungaar muuqaal kooban oo uga hadlayso wixii ku dhacay maalinkaasi iyo hadda sida xaalkeedu yahay goor saacada ay tahay halka saac oo habeenimo ayaa rag ay imaadeen hubaysan alxamdulilah rabbil caalamiin waan ka noolahay halka madaxaabay xabadiiga qabteen bistoolada dib baan leega sheegi doonaa makaaruf halkaas ay iga qabteen xabadii makaarufka bistooladii makaarufkeedu way dhici weysay wuu ila soo wareegay intuu iga qabtay xukunka ilaahay way dhici weysay bacdeen kii labaad markuu ninkii koowaad laba xabood ugu qabtay ninkii labaad uu soo wareegay kii kala imaaday oo labaad halka uu iga qabtay kilida ah bistooladaas waxa la yaateetee xabadii way dhici weysay qadarta rabbi uu liga soo wareegay halka laabta uu iga qabtay weysay sayaniga tahay waan naxayar shay ragina ilaamaha abniga ay gacanta u galeen markaas ba control ku dhacay aniga markay meeshaas ay qado korontada iga maqneed ka bacdiya gacanta meeshii laga qabtay markay gacanta meeshii laga qabtay kulay cadkayga dambeeyay targad waxa laga dhignayna ma aqaano marka hadda aanu cid targad ka dhigaynin sharciga islaamka kama weynin hooyo Soomaaliyeed konton habeen umul ah ayaan ahaa ciyaalkayga meel kuma sheega hadda waxaan biilayay oo markaas aan qof u baxay oo beel iga sugayay hooyadii waayeel ah walaalahay sabool waxa bahaysanin ciyaalkayga yaryariska oo midka uu yar oo markaas umusha ah aan kula jiray konton habeen ayaan umul ahaa intaas baan idin sheegayaa sharciga islaamkana kama weyni dhagarta iyo dilka dadka waxaa soo diyaariya koox ay u yaqaanaan istikhbaaraad waxaana kooxdaasi xukuma ninkan oo lagu magacaabo Salmaan kaasoo diiday inuu la hadlo barnaamijka Gungaar balse Salmaan ugu dambeyntii waxa uu qiraal ka hor sameeyay fadhiga maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya halkaas uu ka sheegay doorkiisa al-shabaabnimo aniga waa kamid ah laakiin taqyiid ahaan kama mid ahayn qasab awgiisa aan ururkan ugu biray aniga saaxiib aan nahay maxamed xaaji liiraada ay u qasbay inaan ku biiro shabaab asagaana barnaamijkaas la waday waxaan waabisna oo kaliya lacagaas oo kaliya akoonkii bis ay isticmaali jireen wax hadda shaqo aan qabtin ma jirto Hashim waxa uu ka mid yahay shabakada Maxamed Xaaji la shaqeynaysa waxa uu qaabilsanaa hagida iyo saaminta goobaha ay dilalka ka dhacayaan waxaana uu ahaa hagii ugu kalsoonida badnaa Xaaji waliba asaga ayaa ku tashkiiliyay inuu ka mid noqdo kooxda al-shabaab marka ninkaasna saaxiibka waa taqaana horan waa u taqaanay ururkaas inuu ka tirsanaa anaasan saaxiib aan nahay marka hadda ururkaas waaba ka tirsanaa waa la shaqeeyaa marka adigana waxaan jeclaan lahaa inkastoo saaxiibkayga aad tahay inaan arrintaas aan kugu tashkiiliyo oo adiga go'aan ka gaartid isla markii aniga go'aan degdeg ma gaarin waxaan dhahay kuley aniga hadda nin iska shaqaystaan xaasna waa qabaa markaas waxaan ka shaqeeyaa footidiyaan ka shaqeeyaa marka waxaan dhahay xoogan waa laga fiican yahay wax hadda aniga arrin qidda askari iyo xaas iyo mana aqaano haddana kuma degdegi karo kuley nin xaas qoon waa kuley dhib ma loo dhahay laakiin qaabka u malaysa maan qaab kale nooc kale loo shaqeeyaa jirto oo adoo hooshaada wato ciddaadan aysan ku ogaanaynin oo iska fiican
ayaa jirto magaalkaana joogo marka qaabkaas aan kuu sheega hadday ku qanciso kuley anaa horta waa kasoo fikiraa si wax u jira ii sheeg marka qaabkuu ii sheegay qaabka amnigu ii sheegay magaalka qaabka looga shaqeynayo hoolasho la qabanayo qaab loo qabanayo waxyaalahaasuu ii sheegay marka faadumo oo magaceeda afgarashada yahay korneylad faadumo ama cosaba waxay u qaabilsanayd shabakadan inay u soo shirqoosho dadka ay rabaan inay dilaan waxayna ballamin jirtay nimanka si kor looga arko iyadoona ka mid ahayd madaniga xamar jajab iyo ururka hooyooyinka qaranka jilcanta iska dhaaf aniga qarax ma ku dhiibanaan hubkan ii qaada ii hay ma ku dhahay degmadaas waxaan ka rabaa wixii ka dhacayo xilliga xalfadda ay qabtiin xilliga madaxdeedii imaanayso xilliga ay degmada soo galayaan xilliga ay ka tagayaan sida badan madaxa idii timaado inaa ii soo sheegtid oo maxaan ku yiraahdaa saas hoo shaqada ay ila wadadaan rabaa waxaas la ii soo sheeg bis aniga wax kale ay qaban faadumo waxay diri jirtay sawirada dadka ay al-shabaab doonayaan iyadoona qaarkood sukaansi ahaan ula macaamili jirtay markuu ii soo dhigay sawirradii madaniga saasaan ugu dhigay madaniga marka saas ugu dhigay marka waxaa jiray wiil oo madaniga ka gooni ahay sawirkaas oo mootoolo ahay ay jiray asna waa u dhigay asiga mootadiisaan u dhigay taargadiisaan u dhigay kaas mayna arkin weli ma arkin waa la joogay ayadoo marka sidii laisku moogyahay haddana waxuu ii soo diray wiilkan oo taliya qaybka ahaa faadumo waxa ay cashirqool u diyaarisay nin iyada ay kala tageen kaasoo ay u sheegtay inay uuru leedahay taasoo aan waxba ka jirin kadibna markii ay ballamitay waxay kor ka tusay koox ka tirsan al-shabaab si ay u aqoonsadaan marka ay dilayaan soo wacay asiga wuxuu dhahay haddaad uur leedahay inay buluhu saxyiin in kale isbitaal ku geynaa ani marka hadalkaas waan ka xanaaqay waxaan dhahay inay buluhu saxyiin in kale isbitaal ku geynaa iflagaadan arkaan dhahay marka wuxuu yiri ima maalo ima wiri xaar ma ku iimaanayni waa ka xanaaqay maalinkaas xaar ku iimaanayni marka habeenku soo wacay wuxuu dhahay walaalay waa kugu la kaftamahay hadalkaas iska dhaaf iyo wixii oo dambiyo aan galnay waxaan ku yiraahdaa iska kiyaafi xaaladan inay meesheeda ka sii socoto rajaynayna oo reerka aan ka doono oo maxaan ku raxmatadan ku geystan aan ka tirtiro marka imo sawiradiisana markaas waa la soo diray taleefankii ku jiray markuu isoo wacay amiirka u sheegay xarisaas ay jirto wiilkaas maanta aad rabaan socday xafidiis socdahan hay waa arkayna warjiro qarab ku ballan waa arkayna isoo doonan lahay waa isoo doonay ayagana sidii ay kor u arkeen xaafadda aan soo sheekaysan waxaan dhawraal warkii hore la wadahay nakala daayana waa ka soo laabtay gurigan u soo laabtay nimankaana way arkeen waxyaabaha cajiibka aan ku ogaaday faadumo waxaa ka mid ahayd inay aaminsan tahay khuraafaad iyadoona sidatay warqadan oo ay ku sheegtay inay ka xijaabayso dowladda inay ogaato howlaha ay waddo taasoo sida muuqata ah sixir iyo wax la halmaala haashim oo ka mid ah qaybta sahanka ee kooxda al-shabaab mar hadda ka hor la xiray maxamed xaaji waxa uu ahaa shakhsigii u dhexeeyey maxamed aabiis iyo kooxda al-shabaab wuxuuna sheegay inuu mar kasta la xiriiri jiray aabba xaaji una sheegi jiray in wax kasta oo dhaqaalaha u baahdo ay ka caawin doonaan si loo soo daayo xaaji aabiis waxaan dhihi jiray xaaladintay maray meel bis waxaan u sheegi jiray inay ardaydii ama dhallinyartii ururka goolmareer dhallinyarta inay wax walba ay garab taagan yihiin haddii loo baado qarash haddii loo baado wax walba ana u sheegayna wiilkiisa meeshii lacag haddii looga baado laga helayo dadka caawinayo aan qarinayo intaasaan u sheegi jiray laakiin lacagaan isku dayi jiray inaan odayga haddii loo baahdo in lasoo dhiibo oo lacag lagu furdaaminayo bisnidiisa laakiin aabbaha dhalay maxamed xaaji oo aan la kulmay waxa uu diiday in ninkan ay wax wada hadal ah galeen isaguna uu iskiis ugu dadaalay sii daynta wiilkiisa wiilka hadda kahor waa iska jirtay
ilmaha la xiray يعني راف وقال راف اسكندري marka raaf baa la galaa xilmo raaf baa la galaa saadiga raafta waxa uu gal yiraahdo inuu sabta iyo wax oo macnaha dhacdo fal of sameeyay ama dad sameeyay mutuma oo yaala geeyada Dubai iyo waxa jiro howlgal guud oo la soo howlgal guud oo soo bar ما صاروا حري marka dam guud maana waxna waa lagu waay wala iskii daayay sida maana waxna hadu dam leeyna hal hukumo hadu dam leeyna yani alisi waay sida alisi ma jirta cid ka gacanaysa markaas deyntii maxamed xaaji waxa uu qabaa in horjoogayaashooda aysan ogoleen caruurtoodu inay galaan dhibka iyagu ku jiraan taasna ay tahay tuun ay qabaan balse aysan kor u sheegi karin sabab la xiriira xabsi ay qabaan wala isweydiina ilmahoodii aaw ilmahoodii waa laga dheereeyaa maxaa yeelay ayagaa lagu korraadina maraykana canuga ninka ku korraadin kara nacsu u fikiraan حقيقة لك أساس معهن حقيقة حتى نو بعلم جيسوا كلنا صارها على الجبل عياركيس من وكل مقيم مركز لقنا ويل كيس للدخينة al-shabaab waxay maxamed xaajiilka xase ku dareen haweenay u ka dhintay ninkii isku qarxiya hotel ambassador oo lagu magacaabo qaali cabdirasaaq taasoo hooyadeedna ay ku jirto xabsiga dhexe loona xukumay al-shabaabnimo iyo hubhayn qaybta koowaad ee barnaamijkeena gungaar waa naga intaa qaybta labaad oo aan uga hadlayno siday wax u dhagraan kooxda al-shabaab kala soco habeen dambe isla 8 fiidnimo telefishinka qaranka